mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliland ayaa cod aqlabiyada ku ansixiyay wasiiradii u dhawaan soo magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland kala fadhigan ayaa waxa shir gudoominayay Cabdiraxmaan Xirro musharaxa madaxtinimo ee xisbiga mucaaradka wadani ahna gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland ayaa waxa uu mudanayaasha ka codsaday in la ansixiyo mudanayaasha uu soo magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Silaanyo ay kala haayeen mas'uuliyiinta la ansixinayay la hor keenay golaha wakiilada Soomaaliland wasiirka arrimaha gudaha wasiirka duulista iyo hawada gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland haddaba ka hor codayntooda ayaa waxa fursad loo siiyay inay warbixin kooban ka bixiyaan shaqada qaranka ay u qaban doonaan haddii la ansixiyo waxaana halkaasi ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha Faratoon iyo wasiirka duulista iyo hawada Farxaan Haybe wasaaraddaas hawsheeda dadku waa ka wada dheregsan yahay iminkana si wanaagsan ayay u socotaa xiisadaha iyo hogaayada xarqaladaha ee gobolada ka dhacay meelaha qaarkoodna gacanta si wanaagsan ugu haysa mashaariicda GLBG-ga iyo ay kamid yihiin ee horumarinta deegaanadana si wanaagsan ayay u socdaan wasaaraddu shaqaale badan ayay leedahay xarunta kaliya ayaa waxa jooga 170 shaqaale ah waxa leedahay wasiir dawlo iyo wasiir ku-xigeen iyo agaasimo guud iyo 6 agaasimo guud ahaan wasaaraddu si wanaagsan bay imika u shaqeynaysaa طبعا wasaaraddu shaqada qabataa waa ugu badan waxa weeye marka lagu gundadago waa safety iyo security inay ilaaliso diyaaradaha imanaya iyo rakaabka ay sidaan safety-gooda iyo inay ilaaliso madaarada security-gooda amnigooda hawshaasina si fiican bay noogu socotaa himilo iyo istaraatiijiyadna waa noo taalaa inaanu qorshahaanu ku shaqeynayno oo markii aan wasaaradda imaan dejiyay anigoo ka faa'iideysanaya wixii xog ahaa aan ugu yimi iyo halkay maraysay si aan u gaarsiino himilada qaranku leeyahay oo ku xidhan aragtida iyo hiraalka xukuumadda wixii intaasi ka dambeeyay waxa cod gacantaaga loogu codeeyay mudanayaasha uu dhawaan soo magacaabay madaxweynaha Soomaaliland Axmed Silaanyo kala fadhigan ayaa waxa soo xaadiray 51 mudane 81 mudane oo galu ka kooban yahay oo ay cod aqlabiyada ku ansixiyeen cidii ma jirto hal xubin baa mustay sidaas ku ansaxay gudoomiyaha ma odayn mudane Farxaan Aadan Haybe mudxiir Faratoon waxa ogolaaday 51 mudane cidii ma jirto cid ka aamusay ma jirto gudoomiyaha ma odayn sidaas ku ansaxay waa Maxamed Axmed Muuse Maxamed Jeekare